runtii qof kasto inaga naga midi waxbuu higsanaya qof kasto inaga naga midina waxba tilmaameed u ah oo wuxuu rabaa inuu ka daba tago mashruuciisa uu fuliyo wana sida lagu yaqaan qof kasto muslima oo ilaahay u leeyahay fahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un waxaad moodeen goortii lidin abuuray ama sababta laydin abuuray inay uun tahay uun kaliya inaad ciyaartaan kadibna aan meesha xisaab aanu jirin haddaba waxaan rabnaa inaan fahamno manhaju salaf hadi al-umma fima yakhussu bi hada al-bab waxa laga soo xigtay Abdullah ibn Mas'ud qawl mashhur oo maantana aan tilmaamay inuu yiri inni la amqatu ar-rajula an ara aw inni la amqatu an ana ar-rajula farigan runtii aad bay ii dhibaysaa waana ka caroonaya inaan arko nin dhalinyaro ah waxba aanan hayn in iska socda ee subaxii markuu soo tooso ku mashquulsan un kaliya dharka soo u xiran lahaa maqaahida fariista iska sheekeeya ee daldalma ilaa waaga uu runtii uu markaa noocan ma qorraxda ay ka dhacdo guriga taga haddana telefishin hor fariista ee 24 saac koox kadibna aad moodid ma aragtay xaas arbaca dhintay oo kale intuu dhaco wuxuu soo toosay haddana subaxii kale wuxuu yiri ma jeceli inaan arko maqulatan lamida waxa laga soo xigtay Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardaa yiri markaan arkan nin dhalinyaro ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray oo ku abuuray awood iyo firfircooni iyo nashaad markaan arko oo la yiraahdo ninka kan waxa ma qabto wax professional ma laha in his life wuxuu qabto ma laha uu nool yahay uu sida dadka u nool yihiin wuxuu yiri saqata min ayni indhahi ka dhaca bimaana waa maxay qof kasto inaga naga mida waa column inuu ku dhex jiro nolosha waa inuu meel uu ku jiro khaanad uu ku jiro waa inaad boos taagant wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu qof kasto inaga naga mida waxa asal ah inuu dhaqdhaqaaqo waliyalika waxay dhihireen wama sumiya an-nasu nasan illa li'annahum yataharrakun qofka bini aadamku waxa naas ila lagu magacaabay an-nas birabbi an-nas waxa la inoo yiri an-nas maxay la dhaqdhaqaaq way idan nolosheena waxay tahay dinamikiya harakiya midooda dhaqdhaqaaqaysa qof meel still iska motionless ah oo waxba aan noloshii ku soo kordhinayna taariikhda ma noqon kow mashruuciga muxuu ka bilaabanaya I should have a dream يجب أن يكون لدي حلم وإن وحون كرياض aspiration وإن لا طموح وإن لا يعني بمعنى ننك السؤال نجنا جميلة ما البطموح أتاجين هذا هدي ميكروفون كان يسود ديبو واللي هذا وام حي وحى كيف كريس المستقبل كاي وام حي وحى يديشني المستقبل أهان هيك سيجا جمحوية نين والبا إن نجنا جميلة ما البيو تاجين midba meel sare ka fakiray midba himadiisu aanay dhaafsisnayn dhulka iyo meesha uu fadhiyo midbay madaxiisu aanay dhaafsisnayn dadku ku kala duwan yihiin walillaahi fi khalqihi shu'un arin kale wuxuu yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur ila wuxuu jecel yahay waxyaabaha ugu sareeya shay walbaba markaad college ka dhiganaysid waa inaad ka fakartaa a marka aad jaamacada tagtid darajada ugu sareyso inaad ka fakartaa business baad qabanaysaa Soomaa the most perfected business waa inuu noqdo midka ugu runtii abaaris og hadafka waa inuu noqdo hawl baad qabanaysaa Soomaa ida amila ahadukum amalan an yutqina inagu ma waa la qabtaa looma qabto waxba la bartaa looma barto shay walba marka qabanaysa waxa la rabaa meesha ugu dambaysa perfection oo shayga ugu sareeyo qofka muslimka inuu qabtaa ninka daayarta haduu ka fakaro perfection oo wixii kaanay ummadii inaga naga horeeyay dadkii inaga naga horeeyay wala jeedaa predecessorska salaf hadi al-umma inay noocan ma hogaanka ay u qabtaan wax alla wixii khayra yurubtan maanta aad arkaysaana ay hoos harsato wax alla wixii xadaara ah ay ilbaxnima nimanka didbada waaseen waliyalika arag salaf hadi al-umma fahamkood waxa dhacday maalmahan ma kamida Shuqayq ibn Ibrahim al-Balakhi wa ni Zahida زاهد أو الدنيا ده شقاكم على هاي وهنا كم إذا أحد شيوخ الصوفية رجي ووينا تصوف كل يقين إن الدنيا للنوع آخر أن لسكال الله ذي وروح بدنها واجا يقول لك كل مي إبراهيم من أدهم ما كو كل قرن إبراهيم بس سؤال ويجي وحيري
warniyahow maxaa sidan kuu dhigay yani waxaan ku arkaa in adduunyada dhama shaqada aan ku lahayn oo aad 24 saac ku mashquulsan tahay masjidkaad ka bixi la'adahay warniyahow dharkan jeexjeexan iyo howlahan maxaa ku geliyay markaas wuxuu niyo maalin maalmaha ka mid anoo meel fadhiyaan waxaan arkay buu yiri shimbirka waxaan arkay buu yiri isagoo labada garbood garab ka jabay shimbir kale ee fayow ayaa u yimid afku wuxuu ugu soo qaaday wuxuu cuno ayaxba ugu soo qaaday kadib wuxuu yiri maalinka markaan ogaaday shimbirka jabay ee meel yaal ee kabniinka u baahan inuu u soo gurmaday shimbir kale oo logistic u keenay oo ayax u keenay ba waxaan ogaaday anuu meesheeda fadhiyay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala arzuqi karo waxaan ku dawafaylay aan ku dayday shimbirka jabay oo garab jabay oo meel fadhiyay ibraahim baa su'aashu ku celiyay wuxuu yiri niyo maxaa ugu fakari weyday in shimbirkii wanaagsana ee caafimaadka qabay ee ayaxa soo qaaday inaad adiga noqotid maxaa uga fakari weyday oo maxaad ugu fakartay inaad noqotay shimbirkii loo gurmanayay soo nabiga ma dhihin al-yadu al-ulya khayru min al-yadi as-sufla gacanta sarraysa waxay ka khayr badan tahay gacanta hooseysa halkii aad adiga gacan hoorsan lahayd dawarsan lahayd tuugtami lahayd baryootami lahayd wax lagu tuuri lahaa maxay adigu gacantaada wax u bixin weyday oo ninka aad u noqon weyday kan wax bixiya markaas shir wallahi haddaan fahmay intuu istaag wariya Aba Isxaaq anta ustaadana markaas gacanta ka dhunkada